الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحويا مانتا halkan waxaynu ku eegaynaa mid kamid ah casharadeenii taxanaha ee ku saabsanaa veterinary medicine casharadeenii ku saabsanaa ayaynu halkan mid kamid ah ku eegaynaa maanta sidaad ka arkaan ciwaanka science for healthy and disease animal bal maanta waxaynu eegaynaa in aynu casharkeena maanta waxaynu ku eegaynaa calaamadaha lagu garto neefku markuu xanuunsanayo iyo calaamadaha lagu garto neefku markuu caafimaad qabo ayay isbarbar dhigaynaa markaas waxa weeyaan halkan parameters ku qoranay marka hore neefka halkan waxaynu eegaynaa healthigiisa halkan waxaynu eegaynaa markuu disease yahay marka bal waxaynu eegaynaa appetite ayaynu eegaynaa neef oo mateedkiisu siduu yahay markuu xanuunsanayo iyo markuu caafimaad qabo ayay isbarbar dhigaynaa kii milkiga caanihiisa neefkiisa yihiin markuu xanuunsanayo iyo markuu caafimaad qabo caanaha laftigoodu si isku bedelayaan iyo intuu dhiiqayo markuu xanuunsanayo iyo intuu dhiiqayo markuu caafimaad qabo waxaynu eegaynaa kale water intake sidoo biyaha u qaadanayo biyaha u cabayo neeftan bal waxaynu eegaynaa calaamadaha waxaynu ka eegaynaa healthiga iyo disease-ka calaamadaha waxaynu ka eegaynaa body conditions keenu eegaynaa neefka jirkiisa ama waxa weeyaan neefkan ma neef soo noqonaya markuu xanuunsanayo neefka jirkiisa waxaynu ka eegaynaa geedka oo markuu taagan yahay ama waxa weeyaan muuqaalkiisa guud ee neefka waxaynu eegaynaa indhaha eyes-ka waxaynu eegaynaa nose-ka sankaynu eegaynaa mouth-ka afkaynu eegaynaa neefka waxaynu eegaynaa head-ka iyo madaxa neefka laftigiisa aynu eegaynaa markuu xanuunsanayo marka waxa weeyaan maanta bal waxaynu comparison ku sameeynaa ama waxaynu isbarbar dhigaynaa neef markuu caafimaad qabo iyo neef markuu xanuunsanayo hadaba let's talk the first one aynu soo qaadano appetite-ka neefku markuu aynu leeyahay neefkani appetite-kiisu badsu yahay oo mateedka neefka cunitaanka geedaha oo neefkani u cunayo geedaha ama biyaha markuu aan xanuunsanaynin healthiga markuu yahay markuu caafimaad qabo waa normal sidii caadiga ah oo neefku u cuni jiray wax cunaya marka waxa weeyaan wax dhibaato ah xaqii soo wajihi maayaan appetite-kiisa ama oomateedkiisu si fiican ayaa neefku wixii la siiyo cunaya geedaha u cunaya wax kasta u cunaya usage and absent waxa weeyaan hoos buu dhacaya neefka appetite-kiisu neefkii waxaad arkaysaa oo aan daaqaynin neefkii aan wax cunaynin haddii aad geedihii soo qaado aad neefka istiraha afka ugu gur cuni maayo iskaba daa kuwii kale marka hore uu daaqi jiray iskii daaqi jiray haddaad macluum soo geyso waxaa laga yaabaa inuu neefku cuni waayo geedihii marka waxa weeyaan waa reduced or absent ama waxa weeyaan uu yaraysanaya oo marka laga yaabo aad in badan neefka marba ku khasabtay aad geedo siiso inuu wax yar ka cuno ama waxa laga yaabaa inuu iskaba daayo oo aan geedaba cunino geedihii uu iska daayo taasi waxa weeyaan haddii aad neefkii oo aan neefkii oo aan daaqay oo aan cunayn geedihi aan cunaynin waxa weeyaan waa signs for disease waa calaamad waxay u tahay inuu xanuun neefkan hayo ayay calaamad u tahay marka waxaad garanaysaa inuu neefkan xanuun hayo xanuunkaas ayaad markaas aad balsaad u ogaan lahayd aad isku dayaysa bal waxaynu eegaynaa milkiga caanaha neefka waynu ognahay xoolaha waxyaalaha loo dhaqdo waxa kamid ah caanaha kamid ah in caana laga helo in laga helo cad baa kamid ah cad iyo caanaba inagu waynu dhaqanaa hadday Soomaalida nahay inaynu xoolaha aynu dhaqanaa waxa kale loo dhaqdaa waxyaalihii kale ee baan ku wari xaqii fardii oo kale xaqii tartanadii oo kale xaqii quruxdii oo kale waa loo dhaqan karaa bal waxaynu eegaynaa milkiga caanaha neefka sidee uu noqonaya markuu normalka neefka yahay caanihiisu waa normal markuu healthiga neefka yahay caanihiisu waa normal caanihiisu waa intii uu dhiiqi jiray uu dhiiqaya hadduu dhiiqi jiray glass kun baa laga helaya haddaanu soo gurayno oo wax weeyaan neefkii aanu gaadhin xilligii uu qaadi lahaa neef kale ilma qaadi lahaa aanu gaadhin ama hashiyo kale xilligay rimi lahayd xilliga haddaanay gaadhin waxa weeyaan caanaha intii soo dhacaya hadduu neefku xanuunsanayo caanihii waa decrease hoos buu dhacaya caanihii neef hoos buu dhacaya waxaa laga yaabaa hashu way badin jirtay haruub baa laga lisi jiray laga yaabaa hasha marka ay xanuunsato dee caanihii intii laga heli maayo marka caanihii hoos buu dhacaya taasna waxay ku cadaynaysaa inuu xanuun jiro meesha water intake bal neefkan biyaha sidee u cabaya xoolaha waa la waraabiyaa
marka xoolaha la waraabiyo xoolaha marka biyaha loo dhigo way kusoo qamaama oo kusoo yaacaan riidiyaan dabeetana waxaa loo sameeyaa waa la qaybiyaa horma loo sameeyaa horma la sii daaya ilaa waxa weeyaan haddii aad tiran ari haysato 100 neef aad haysato waad ku sii deyso barkadii waxa weeyaan weelkay ku cabayaan waa foosto gobolooyin yar yar ay markiiba isku leeyayaan ma cabi karayaan marka waa inaad soo hortaayo marba soo deyso 10 marba 10 soo deyso markii cabaanay ka fulaan aad inkla soo deyso marka bal water intake neef xooli waa soo horeeyo xooli aad soo hortay wax ku jira neef xanuunsanayo marka isla markaaba qofka xoolaha leh uu garanaya inuu neefkaas xanuunsanayo wuxuu oranayaa neefkaasi biyihii cabi maayo biyihii ma cabi normal markuu neefku caadi biyaha caadi u cabaa neef weli decrease hoos bay u dhacaan inta badan biyaha neef xanuunsanaya biyo aad u cabi maayo marba jirta xoolo ay iska biyo diidaan iyagoo aan xanuunsanayn oo waxa laga yaabaa neefkii biyaha inta badan xareed ah oo kale xooluhu inta badan aad ma cabaan baa laga yaabaa qaar ka mid ah marka waxa laga yaabaa neefku inuu iska diido biyihii oo biyo diid yahayba taas iyo waxa weeyaan tan xanuunku la isku khaldayo waxa weeyaan waa kala jaad calaamado badan baan soo wadnaa calaamad badan baa hoos inagu taxan oo lagu garanayo neefku waxa weeyaan inuu xanuun jiro iyo in kale marka biyo diid haduu neefku yahay sidiisa waa inuu biyaha cabayni ama milix baa lagu daray biyaha ama madaxa lagu meedhaya oo qof waa madaxa ugu meedhaya marka uska buu ga dhawaanay marka uskagaas dhanaan ayuu ka yar helaya marka saas ku cabaya markaas laakiin se markuu xanuunsanayo biyaha neefka cabi maayo waxa weeyaan totally biyuhu waxa weeyaan ama cabi maayo ama wax yar buu ka cabaya neefka body conditionskiisa eegina bal waxa weeyaan neefkan sidee uu yahay jirkiisu xoolo markay caafimaad qabaan waad aragteen oo way naxaan oo neefkaas waa neef shilis baa lagu oranayaayo oo waxa weeyaan uu caafimaad qabaa uu naxaa haddaba markuu neefka xanuunsanayo ama xanuun ku dhaco cudur ku dhaco xoolihii waxa weeyaan neefka ma naaxay neef shilis oo waxa weeyaan arki maysid aad u naaxay waa emaciation waxa weeyaan waa caato neefka caato noqonaya oo waxa weeyaan waad arkaysaa neefku inuu soo caatoobayo oo xanuun uu hayo ama xanuun lafta kaga soo jiro geedka neefka waxa weeyaan socodkiisa eegaynaa neefka markuu taagan yahay bal suu qaabku u taagan yahay structurekiisa socodkiisa iyo waxa weeyaan markuu caafimaad uu freely si iskii uu neefku soconaya halkaas uu tagaya neefku soconaya uu cararaya uu ciyaaya neefkii si uu soconaya geedkiisu movementigiisu caadi u soconaya waa qaabku soconaya geedku waa movementigu neefku waxa weeyaan socodka neefka weeyaan marka neefku caafimaad qabo si caadi iskaga soconaya free ah iskaga soconaya walina wax weeyaan iyadoo aan wax jirin caqabad ah wax weeyaan fudud buu soconaya markuu xanuunsanayo neefku waa slowly difficult move slowly and difficult wax laga yaabo neefku inuu si aayar u socdo walina asagoo oo dhibsanayo way ku adag inuu u socdo si aayar hadaba neefku hore cararayay ciyaayay orgoonayay waxa weeyaan soconayay markuu xanuunsado waxa weeyaan waa istaagay haltuu doono neefkii oo xoolihii meel taagan baad arkaysaa ama neefkii oo tukubayaad arkaysaa oo yar soconaya heerka neefka madaxiisu markuu caafimaad qabo neefka madaxiisu waxa weeyaan kor buu u taagaa neefka madaxa waxa weeyaan kor ayuu taagaa waanu kor buu u taagaa waxa weeyaan waana alert uu soo jeedaa waxa weeyaan uu caafimaad qaba markuu laakiin si xanuunsanayo madaxa neefku hoos buu fooriyo hoos madaxa fooriyo neefku waxa weeyaan sidii wax dhulka ursanayo oo kale hoos buu fooriyo neefka madaxa marka taasna waxa weeyaan calaamad kamid ah in uu neefkan xanuun jiro neefka aysku waa bright waa indha firfircoon oo cad oo waxa weeyaan caafimaad qaba waxa weeyaan waa qoyaan yar baa ku jirto oo ilmo furan toos ay neefka u furan yihiin markuu xanuunsanayo laakiinse waa dhul waa neefka uu yara habacsan yahay oo neefka uu yara waxa weeyaan indhihiisu waxa
waxa weeyaan partially closed or completely closed waxa laga yaabaa neefka ishu inay xidhan tahayba ama labada indhood oo neefku isku haysto oo haddii xanuunka indhaha ku dhici jiray oo kale yahay inay neefka ili ay xidhanto oo malaxyo xidhan ama labadaba uu neefku ay ku dhacdo waxa weeyaan lamination baa lagu arkaya iyadana oo ah neefka inay ilmo indhihii kusoo taagtaaganto ilmo ay ka da-ayso ayaa lagu garanayaa xagga indhaha marka laga eegayo indhihiisa ila neefka indhaha waa kala furaysa waad eegaysaa afkiisa waad eegaysaa sankiisa waad eegaysaa muuqaalkiisa guud iyo suu soconaya waad eegaysaa waad jeegaranaysaa dhammaan neefka xaaladiisa caafimaad irritate and move frequently neefku dhagahu taagaya waanu dhaqdhaqaajinayaa si joogtaa ugu dhaqdhaqaajinaya dhagaha waxa weeyaan dhagihiisu meel ku qalalay maayaan waxa weeyaan waa soconaya markuu xanuunsanayo neefka dhagihiisu waxa weeyaan waa daroobi dhagihiisu neefka waxa weeyaan way dhacsan yihiin dhigin koraysaa u taagnaa neefka dhagihiisa dhagoysaa u taagnaa waxa weeyaan waxaad arkaysaa neefka dhagdhacsan baad arkaysaa aan aadan u dhaqdhaqaajina marka hore waxay ahaayeen way taagnaayeen waanu aadka uu frequency-ga ugu dhaqdhaqaajinaya laakiinse dhagihiisu dhaqaaqi maayaan waana waxa weeyaan waana dhacsan yihiin mouthkaanu eegaynaa afka neefka haddaynu afka u kala furna afkiisu neefka waa markuu healthiga yahay waa with and without odor wax ur ahna ma laha neefka ur afkiisa kasoo uraysa ma laha waana waxa weeyaan afkiisu waa af caadi oo caafimaad qaba marka uu yahay xanuunsanayo afkiisu waxa weeyaan dry and produce salivation wuu qallalan yahay waxaana candhuuf ayaa haweenka ka da-aysa oo u soo saaraya candhuuf ayaa kusoo taagtaagan candhuuf ayaana waxa weeyaan afka ka iman karto waad arkaysaa waxaad arki kartaa iyada oo ur qarmuun oo kale inaad afkii waa sankii neefka sankiisu markuu caafimaadka qabo no discharge markuu nowska neefka sankiisu wax malaha duuf ah no discharge wax duuf ah ama qoyaan malaha marka uu xanuunsanayo neefka sankiisu waxa laga yaabaa in uu jiro qoyaan uu sanka jiro neefka sankiisa inuu qoyaan jiro ayaa laga yaabaa ama duuf oo kale lagu arko neefka waxa weeyaan ku garan karto inuu xanuunsanayo neefkan ka mid ah calaamadaha kale aan ku arki karna neefka waxaa ka mid ah tail movement-ka ka mid bal waxaynu eegaynaa dibka neefka bal qaab wasna oo dhaqaajinayo markuu neefku caafimaad qabo iyo markuu xanuunsanayo labadaba tail movement markuu neefku caafimaad qabo waa normal dibka waxaa laga yaabaa ilbiriqsigiiba inuu dhowr jeer neefku dibkiisa dhaqdhaqaajiya laga yaabo neef caafimaad qabo markuu yahay laakiin si neef markuu xanuunsanayo wantiri lagama yaabo inuu dibka dhaqaajinayo neefku waxyaalaha lagu gartay kamid tahay calaamadaha lagu garto inuu neefku dibkiisa uu halkiisii u daayo inuu dibkiisu aanu dhaqdhaqaaqaynin ayaa kamid ah waxaa kale oo kamid ah temperatureka neefka markuu caadiga yahay xooluhu temperaturekoodu kala duwan yahay sida dadka maaha teedisina qaliya maaha laakiin si xoolaha speech kastaaba ama genes kastaaba macal speechka laftigiisa ayaa waxa weeyaan temperaturekoodu sii kala duwan yahay markuu adultiga yahay iyo markuu neef yar yahay marka waxa weeyaan temperaturekiisu waa normal markuu xanuunsanayo laakiinse waa decrease hoos buu dhacaya respirationka neefku markuu caafimaad qabo si caadi ah ayuu u neefsanaya laakiinse markuu waxa weeyaan u xanuunsanayo respirationkiisa neefku waa kordhaya waana ku adkaanaya laabariduu ku adkaanaya inuu neefsado ku adkaanaya ruminationka neefku markuu waxa weeyaan uu raamsanayo ama raamsi baa la dhahaa markuu neefku raamsanayo waxa weeyaan frequently waxa weeyaan si fiican buu raamsanayaa raamsigiisu ma istaagayo ma joogsanayo waxa weeyaan every minute dhowr iyo 10 jeer buu raamsanaya markuu xanuunsanaya laakiinse raamsi ma jirayo uu istaagayaa raamsigiisu neefka ama waxa weeyaan neefka raamsigiisu istaagayaa ama uu yaraanaya bal waxaynu eegaynaa inaynu casharka ku xiga inaanu soo gelino practical neefka respirationkiisa qaabka loo cabirayo qaabka loo cabirayo temperaturekiisa qaabka loo cabirayo birth rate-kiisa intaba
qaababka loo dhageysanayo scriptationka loo sameynayo ayaanu doonayna casharka xiga practical iyada oo ah tusoo taabsi inaanu idiin soo gudbino casharadeenii hore waxa weeyaan practical baan sameynay aad ku soo aragtay fara badan kuwana waxa weeyaan casharka soo sameynay practicalkiisina inaan raacino insha Allah calaamadaha lagu garto neefku markuu caafimaadka qabo iyo markuu xanuunsanayo waxyaalo badan baa jirta oo xoolaha lagu garto inay caafimaad qabaan iyo inay xanuunsanayaan xoolaha oo kale marka suuxii la sii daayo reerku xoolaha sii daayo waxaad arkaysaa xoolo markay daaqayaan markiiba qofka xoola yaqaanka ama xoolihiisa u warhaya uu garanayaa neefka xanuunsanaya iyo neefka caafimaadka qaba wuxuu ku garanayaa calaamadahan soo sheegay waa qaar kamid oo ku garan karo wax ka badan oo ku garan kara oo wax weyn xoolihiisa oo ku garan kara neefka xanuunsanaya isma qariyo iyo neefka caafimaadka qabana la isku khaldi karo marka aynu eegayno vitamin D dhakhaatiirta xanaanada xoolaha waxa laga yaabaa dhakhaatiir badan inay jirto oo aan iyagu miyi soo marin ama xoolo dhaqato aan soo ahayn oo miyiga xoolaha aan ku soo dhaqan jirin laakiin si cilmi ahaan u dhigtay qof kasta waxaan kula talinaynaa ardayda dhigata kulliyadda veterinary medicine waxaan kula talinaynaa inay xoolaha ay inta badan fiilasha ugu baxaan dibada ama dhulka miyiga ay u baxaan si ay xog badan uga soo helaan waxay wareysan karaan dadka xoolaha leh oo oran karaan xoolihiina waxa weeye maxaa ku garata markay xanuunsanayaan markay caafimaad qabaan maxaad ku daweysaan waxaa jirta dawooyin fara badan oo ah traditional ama dawo dhaqameed ah oo xoolaha lagu daweeyo haddii ay dhir tahay haddii ay tahay dawooyin haddii ay tahay dab haddii ay tahay dhir haddii ay tahay waxyaalo kale oo caadooyin ah oo reermiyigu xoolaha ku daweystaan xooluhu waa laf-dhabarta dhaqaalaha dalkeena xoolaheenu muhiimad gaara bay noo leeyihiin adduunyadana xoolaha halka ugu badan lagu dhaqdaa waa waxa weeyaan dhulkeena Soomaaliyeed waxa weeyaan maanta intaasaynu kusoo gabagabeynaa casharkeenii markasta waxaan uga diyaarnahay inaynu soo gudbino inaanu idiin soo gudbino casharo hufan oo ay aqoon ku dheehan tahay oo ku saabsan veterinary medicine ama dhaqashada xayawaanaadka ha ahaadeen xoolaha ha ahaadeen duurjoogta kale dugaaga laftigiisa waxaanu ka hadalno weli soo gudbinaynaa subscribe gareeya channelkan like gareeya wixii comment ah wixii talo iyo tusaale ah commentiga nagu dhaaf dhammaantiin waad mahadsantihiin daawasho wacan